Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka xulka siyaasadda ee janalka Warcadda Media. Waxaan idinka codsaday inaad subscribe noo saartaan, like iyo share aad markaas noogu dhufataan. Dhegeystayaal, waxaa markaasi idin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay siyaasadda, warar degdeg oo hadda naga soo gaaraya gudaha magaalada Muqdisho, gaar ahaan hoteelka lagu magacaabo Airport Hotel oo ay degan yihiin madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa markaa tagay hoyga ay degan yihiin madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland, iyagoo markaasi ka wada hadlaya xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya. Wararka ka imaanaya gudaha Hotel Airport ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in aad markaasi loo xadiday in wax muuqaal ama sawir ah laga qaado kulanka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe, kaasoo markaasi ka timid soo jeedin habmaamuuska madaxweynaha maamulka Jubbaland oo ay diideen in wax sawir ama muuqaalo ah laga qaado madaxweynaha Jubbaland iyo ra'iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Bare. Labadan mas'uul ayaa horay khilaaf xooggan uga dhex taagnaa ku aadan doorashadii madaxweynaha maamulka Jubbaland uu markaasi ku qabsaday magaalada Kismaayo sanadii 2024. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa la sheegay inuu hadda kulan gaar ah la leeyahay madaxweynaha maamulka Jubbaland, walow aan si cad loo ogeyn waxyaabaha labada mas'uul ay ka wada hadlayaan. Dhowaan, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare oo ku sugnaa magaalada Laascaanood ayaa sheegay in aysan dowladda federaalka Soomaaliya u aqoonsaneyn Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland, maadaama ay sheegeen doorashada ay qabsadeen inay ahayd mid sharci darro ah isla markaana aysan waafaqsaneyn nidaamka doorashooyinka ee dalka Soomaaliya. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in mas'uuliyiinta la socotay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Bare ay u suurageli weysay inay noqdaan ka qaybgalayaasha kulanka sababo ilaa hadda aan markaasi la ogeyn. Kulanka Axmed Madoobe iyo Dani ayuu la kulmi doonaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare. Kulankan ayaa imaanaya xilli maanta madaxda maamulada madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaarayaashii hore Xasan Cali Kheyre iyo Maxamed Xuseen Rooble iyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka mid ah mudanayaasha Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliya laga celiyay afafka hore ee alboorka magaalada Muqdisho, iyagoo halkaasi ballan kulan markaasi ku saabsan wada tashi kula lahaa madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland oo hadda ay degan yihiin gudaha xarunta xalane ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, taasoo ay si weyn mar kale ugu cariisay golaha mustaqbalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa la sheegay in uu markaa sidoo kale kulan markaa la qaadan doono madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale ra'iisul wasaarayaashii markaasi isaga ka horeeyeen, isagoona kala hadli doona xaaladda siyaasadda dalka, gaar ahaan shirka lagu wado inuu markaasi ka furmo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, xilli maanta madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, isagoona ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa, wuxuuna ka qayb galayaa shirka Midowga Afrika oo halkaasi ka socdo, wufuud kala duwan ay ka qayb galayaan. Sidoo kale, wararka laga soo gaaraya xarunta xalane ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in kulamo xooggan halkaasi ka socdo oo ku aadan sida markaasi laga yeelayo go'aanada ku saabsan mucaaradka oo ay kaga tashanayaan dowladda federaalka Soomaaliya oo gebi ahaanba diiday in markaa ilaaladooda la galaan mucaaradka ku sugan magaalada Muqdisho garoonka diyaaradaha oo ay markaasi degan yihiin madaxweynayaashii maamulada Puntland iyo Jubbaland. Sidoo kale, waxaa wararka intaasi ay ku darayaan in taliyaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Mahad Salaad uu markaa kulan gaar ah la qaatay madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, sida wararka naga soo gaaraya ay sheegayaan in Mahad Salaad uu ka socday erga ay soo dirtay dowladda federaalka Soomaaliya si looga hadlo
dhacdada ku aadan in mucaaradka loo diiday in gebi ahaanba ay tagaan gudaha xarunta xalane ee magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Waxaa sidoo kale jira kulankaasi ay ka qaybgalayaan xubno ka tirsan mucaaradka Soomaaliya. Ilaa iyo hadda wax war oo rasmi ah ku aadan kulankaasi iyo qodobada looga hadlay ma jirto. Wax warbaahinta ay labada dhinac la wadaageen. Mahad Salaad ayaa saacadan kulan gaar ah kula leh xarunta uu markaasi magaalada muqdisho ka degan yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. Xaaladda siyaasadeed ee waddanka ayaa hadda u muuqata mid ay markaasi sare kacday kadib markii mucaaradka loo diiday in hoyga ay degan yihiin madaxweynayaashii hore ee maamulada Puntland iyo Jubbaland in markaa ay tagaan golaha mustaqbalka Soomaaliya si ay uga arrinsadaan xaaladda siyaasadeed dalka, gaar ahaan inta uusan furmin shirka lagu madalsan yahay in ay markaasi wada yeeshaan mucaaradka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Kulankaasi oo doodiisa ugu badan ay ka taagan tahay arrimaha doorashooyinka, dastuurka oo hadda qoraalkiisa uu socdo oo ay baarlamaanka Soomaaliya ka doodayaan. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa isna lagu wadaa in maalintii beriyaha ay kulan ku yeeshaan magaalada muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya labadiisa aqal si ay markaasi usii ambaqaadaan qodobada horyaala ee ku aadan dastuurka oo ay markaasi kulamadii ugu dambeeyay ay dood markaa la geliyey, walow kulamadaasi ahayn kuwa buuq badan uu hareeyay islamarkaana xildhibaano ku dhow 50 mudane ay guddoonka baarlamaanka ka ganaaxeen ama laga joojiyey fadhiyada markaasi soo socda ee golaha shacabka ama labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya yeelanayaan. Sidoo kale wararka waxay sheegeen in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu aad u daneynayo in ilaa waqtiga muddaxileedkiisa ka dhiman bisha May 15 in markaasi mucaaradka kala hadlin arrimaha siyaasadda Soomaaliya, taasoo la sheegay in madaxweynuhu ku andacooday in mandatekiisa ama muddaxileedkiisa lagu guda jiro islamarkaana ay tahay in madaxweynuhu lagu markaasi hoggaansamo awaamirtiisa. Mucaaradka iyo dowladda Soomaaliya ayaa hadda khilaafkooda ugu badan uu ka taagan yahay arrimaha ku aadan halka marka ugu horeysa uu shirka ka furmi karo iyo qodobada looga wada hadli karo. Villa Soomaaliya ayaa doonaysa ama madaxweynaha Soomaaliya ayaa markaasi ku adkeysanaya in shirka uu ka furmo ama uu ka dhaco xarunta Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, halka mucaaradka madaxweyneyaalka Puntland iyo Jubbaland iyo golaha kale mustaqbalka Soomaaliya ay daneynayaan in shirka uu ka furmo gudaha xarunta xalane ee magaalada Muqdisho. Haddaba wixii wararkaas ku soo kordha wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa. Saaxiib yaal waxaan idinka codsanayna inaad markaas subscribe noo saartaan, like iyo share iyo comment-na markaasi hadan ku ilaawin. Intaynu barnaamijkan xiga dib ugu kulmi doonaa anagoo isku duwan dhammaanteen nabadgelyo.